أي تابع هذا دايما هذا يتابع هذا دايما يتابع magaalada muqdisho ma aragti ummadna haysa ummadna dad ay haysa wallah khadaradooda adeeg ku haysa kulantii wanaagsan dhammaan daawadayaasheena ku nool daafaha caalamka mar kale soo noqdo wanaagsan muuqaalka la xiiso leh bartaad naga daawanaysaan waa janaalkiina dareenka nolosha TV kaasaad ka daalactaan waxyaabaha xiisaha leh ee daawadu ka taagan baraha bulshada kuwaas aan isleenahay armay muhiim tahay in la fidhaamiyo daawadayaasheena haddaba daawadaheena sharafta loo hadiyay tahay markii ugu horeysay aad janaalkana soo booqato janaalka walaalo subscribe saaro furana gambalaalka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaalada bartaan soo gelino haddaba daawadaheena sharafta loo sida aad ka soo aragtay thumbnailka barnaamijka matfaaqideen ama title-ka ka soo akhristayba waxaa jirta in caawa 7 fiidnimo ee barnaamijka qaraaxo ay marti ku tahay fanaanada magac weyn sameysay barihii ugu dambeeyay ama sanadadii ugu dambeysana caada sare mareysay ee Najma Nashaad ayaa waxaa dhacday in lagu casuumo barnaamijkaasi qaraaxo taasi oo ka duwan barnaamijyadii hore ee soo gudbin jiray haddaba maxay sameynaysaa oo falcelin ah Najma Nashaad oo aan ku naqaano qof dulqaad badan maxay sameynaysaa dabcan dadka qaar waxay isleeyihiin armisan xanaaqin qaar waxay isleeyihiin way xanaaqday balse muhiimadda barnaamijka ayaa wuxuu intuu ka dhamaanayo in saxafiga weyn ee Yufle uu ka xanaajiyo qofkii gaariga saarnaa waayo qofkii ma filayo in gaarigaas dhexdiisa prank lagu sameynayo ama camera lagu xiraa qofkii ma filayo dabcan dad badan ayaa lagu sameeyay ay ka mid ahayd Xamdi Bilan oo xal la soo daayay sidoo kale Qadir Kayow sidoo kale fanaaniin badan oo caan ah iyo dadka shakhsiyaad kale oo ay ka mid yihiin tababarayaal iyo dad caan ku ah sameynta make up-ka haddaba barnaamijkan ayaa wuxuu ka duwan yahay barnaamijkii Ramadaankii hore maadaama Ramadaankii hore kaliya barnaamijkaasi lagu casuumay kaliya fanaaniinta balse barnaamijkan wuxuu uga duwan yahay barnaamijkii Ramadaankii hore waxaa lagu casuumayaa fanaaniin shakhsiyaad caan ah ay ka mid yihiin ciyaaryahanno ay ka mid yihiin modeliska kuwa gabdhaha sameeya make up-ka oo ka mid tahay ugu horeyso hormuud ay u tahay Marin Axmedey haddaba barnaamijkan ayaa wuxuu noqday barnaamij runtii dabagal ah waayo qofkii waa saa'im uu sooman yahay ma daawan karayo heesihii iyo waxyaabaha qaar ma daawan karayo sidoo kale ma daawan karo aflaanta qaar ma daawan karo balse qofkan waqti ayaa la siinayaa oo ramadaankiisan ku ilaashanayo nafsadiisana uu ku madadaalinayo taasi oo looga madcelinayo kambaniga weyn ee Stan oo u istaagay sida bulshadooda ay ugu sameyn lahayn waxa loo yaqaan entertainment taasoo ay ugu duwan yihiin ama role model ay u yihiin TV-yada kale oo ay soo daayay waxyaabaha qaar haddaba u salaabana muhiimadda barnaamijka aan maanta faaqideen daawado Najma Nashaad oo dhawaan ka timid magaalada Hargeysa una joogtay howlo shaqo magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa dhacday barnaamijkaasi qaraaxo lagu casuumay dabcan waxaan ka soo daawaday oo si hordhac loo soo dhigay qaybta website-ka ee Stan TV oo dadka qaarkii aysan daawo karin marka laga reebo dadka credit ku sameeya ama lacag ku daawanayo ayaa daawada waxyaabo aan ka arko waxa kamid ahayd in Najmo ay sameynayso gaarigii oo socdo inay isku dayayso in albaabka furto kadibna ay ka degto taas oo halis gali karta ama dangerous u keenayso nafsadeeda balse ugu dambeyn la dejinayo xaaladeeda loona sheegayo in barnaamijku yahay barnaamijkii Ramadaankii hore socday iminkana continuously ah ee qaraaxo taasoo ay aad u la yaabayso waayo ma filanayso sababtoo qofka wuu shakin karaa markii studio la geeyo ama wuxuu isleeyahay ama barnaamijkii Ramadaankii hore uu isleeyahay laakiin qofkan gaari aan lagu soo doonay marnaba waa first time ay dhacdo in qof gaari dhexdiisa baranka lagu sameeyo ama camera lagu duubo dabcan Stan waxay kaysatay shaqaalo runtii howlkar ah fikradoodana ay aad u dheer tahay bal ka waran qof ma ka suurtooda ama TV inuu keeno hal abuur ah in qof shakhsi caan ah gaari dhexdiisa baranka lagu sameeyo dabcan waxaa sameyn kara waa kaliya waa company weyn ee Stan oo ay dadku Soomaaliyeed aad u jecel yihiin maadaama bilaha Ramadaanka ama waqtiyada qaar ay garab istaagaan oo qofkii ay waqti qurux badan siiyaan kana qosliyaan misna ay midadaaliyaan iyagoo waliba ka ilaalinaya qofkaas Ramadaankiisa inuu dambi ku yimaado ama uu ka burburo haddaba daawadeena sharafta leh barnaamijkaas ayaa wuxuu ahaa barnaamij runtii aad u xiiso badan Najma runtii aad looga xanaajiyay ilaa ma ay isku dayday gaarigii oo socda inay ka degto taas oo noqotay arrin aad u yaab badan marka qaarna keeni karta dangerous balse muhiimadda barnaamijka laga leeyahay waxay tahay in bulshada la madadaaliyo haddaba Najma Nashaad oo ugu dambeyn markii barnaamijka loo sheegay madax qabsatay misna qosol la dhacday misna kamid ah fanaaniinta leh dhowlcadeynta quruxda badan ayaa aad ugu sashay ana yaabtay sida kiiska ee barnaamijka lagu sameeyay misna aysan filaynin ugu dambeyn waxay u mahadcelisay bahda Stan TV
ay iga madcelisay sida quruxda badan ee dadku madaalinayaan frankii uu sameeyay aysan dib u arkin maadaama ay ahayd ujeedadu in bulshada iyada ku xiran ama taageerayaasheeda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed lagu madaalinayay good time lagu siinayay ayaa ugu dambeyn waxaa dhacday in barnaamijkaasi si habsami leh uu soo dhamaado haddaba daawada in laga sheekeeyo muhiimadda ma sameynayso waqtiga wal soo dhigayo waqtiga soo dhigi doona Facebook page kaastaan lagana soo deedano YouTube-ka aad ka daawan doontaan qaybta keebelka ayaa waxay tahay 7 fiidnimo xilliga Geeska Afrika haddaba iyo ku dhaafin waa inaad subscribe si saartaa channelka Astaan TV sidoo kale tan aad channelkeena subscribe saartaa si aad ula socoto waxyaabaha barsimada aan sameynayno taasoo shacabkeena aad ugu amaaneen waayo barnaamijka dib barsimada laga sameeyo xiiso ay ku sii yeelanaya waxyaabaha qaar oo xiiso leh dib u sii falanqeeyo dabcan waa suuqyada barnaamijkii xiiso gooni ay ku sii yeelanaya haddaba daawadeena sharafta leh barnaamij kasta iyo waxa barnaamij hornaanti aad u xiiso badan lagana filayo in shakhsiyaad kale oo caan ah ka soo muuqdo doonaan kullayna la abaalmarin doono qofkii ugu xanaaqa badnaa qofkii uu sameeyay badnaa inta la abaalmarin doono sidii dhacdaba Ramadaankii horeeto haddaba daawadeena sharafta leh waad yeetaa markuu horeysay aad channelkeena soo booqato kuma channelka walaal subscribe saaro friend gambaleelka si aad u daawada ugu horeeyay hel muuqaalada barta soo gelino daawadeena sharafta leh mar walba waxaan heegay hel ugu jiraan sida adigan kaariina qof maqsuud ah ugu soo gudbilam shaacada loogeyn shaacada ogtaan aan ku xaqiijinahay marba mas'uuliyad inta ku kulmo doon muuqaalka ka xiiso badan daawada waxaan ku rajeynayaa waqti qurux badan iyo caafimaad